shirkun degdeg ah Sookoyan si hayaha ilka madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka amniga dawladda Koonfur Galbeed saraakiil laamo amaanka iyo taliyaha sektarka saddex amisom qaybta Itoobiya iyo waliba ay ku wada hadalnaa arrimo amaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo isla maraxaantaasi suwiyan ku hadalay loo sugu lahay amniga guud ee magaalada Baydhabo oo xilli doorasho ka foodlata taasoo inta badan la ku dooray si doorasho amaan leh ku dhilahayd magaalada Baydhabo shirkiyaha ay ku ilbaabadan hirinay markii dhamaadeen way boorfadeenka waliyaabo ku bay aan faafayay afayeenka madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Yusuf Abukar Gama laamaha amaanka ka howlgala guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya si hayaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abduqaadir Shariif Sheekhono Maye shirkan waxa lagu hadlayay guud ahaan amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ka dhici doonta doorashada hadduu Ilaahay yiraahdo marka waxyaabaha looga hadlay waxa kamid ah sida amniga loo sii adkeyn lahaa iyo warbixino laga dhageystay guud ahaan laamaha amniga sida booliska sida militariga nabad sugidda iyo ciidamada amisom nabadgelyada guud iyagana u xilsaaran deegaanada Koonfur Galbeed ee sector 3 marka waxa looga hadlay waxay ahayd muhiimadda ay leedahay amniga in shacabka uu ku qanacsanaado dawladooda iyo laamahooda amniga guud ahaanba ay la shaqeeyaan shacbiga haddaan wada shaqeyn la yeelan oo shacbiga iyo laamaha amaanka ay wada shaqeyn inay dhibaato badan imaan karto laakiin haddii la shaqeeyaan shacabka laamaha amaanka in ay wax wanaag u imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo marka guud ahaan waxa la iska xogureysanayay xaaladda amniga hadda siday tahay iyo waqtiga doorashada ay dhici doonta siday noqon doonta wixii iska bedel imaan lahaa iyo sidii loogu wada tashan lahaa wax walbo marka yimaado insha Allah shacabka guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudaha ha joogan ama dibadda ha jooganba waxa loo sheegayaa in guud ahaan doorashadii iyo sidii u dhici lahayd iyo amniga sida loo sugi lahaa dhamaanba gacanta ay ku hayaan laamaha amaanka iyo si hayaha madaxweynaha uu madax u yahay hadda si hayaha madaxweynaha ahna gudoonka baarlamaanka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abduqaadir Shariif Sheekhono marka wanaaga iyo nabadgelyada kala shaqeeyaan shacabka guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo inay kala shaqeeyaan laamaha amnigana in uu yahay asigana ama saraakiisha amniga ay yihiin dadkii mas'uulka ahaa waxyaabaha dhacaya marka in ay iyaguna feejignaan guud ay sameeyaan iyo mid gaar ahba oo shacabka ay la yeeshaan hadduu Ilaahay waqtigan waxa lagu jiraa xilligii ay dadka ay qoodan lahaayeen xog iyo warar marka qoodintaas ay qoodanayaan xogaga ee wararka in iyagana ay ahaadaan warar wanaagsan oo si wanaagsan loo tabinayo hadduu Ilaahay marka wararka la tabinayo wanaagsan in ay shacabkana ay qayb ka ahaadaan ay laamaha amaanka ama ciidanka gaarka ah ciidanka xooga dalka ciidanka booliska iyo ciidanka nisaba iyagana ay u dhawaadaan shacabka ayna dhaxgalaan oo si wanaagsan ay si dhowba ay loo shaqeeyaan taas baana la isku afgartay xoogihii laga helay laamaha amniga iyo warbixinada laga dhageystana wuxuu ugu baaqay si hayaha madaxweynaha ahna gudoonka baarlamaanka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in lala shaqeeyo laamaha amniga shacabka guud ahaan ugu baaqay gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo meelu isan aragahay tan ee shirkad goordho gabagabeeyo isla maraxaantaasi saraakiil ka amaray in sadanka dhaqsiha badan iyo ka dadalan amniga sugidisa laamo amaanka la wargeli in hoojiyaan amniga guud ee magaalada Baydhabo xil dhawaan la filaay in magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaya ku dhida doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay foodahani hayta bulshada Koonfur Galbeed su'aalo badan isku weydiin doonaan doorashada Koonfur Galbeed meel ka qabadaha iyo meeliya ka dhigi doonta walow loogin iyo ka dhihay doorashada magaalada Baydhabo laakiin meel ka qabadaha tana bulshadii ogaayna doorashada Koonfur Galbeedna iyo tata maalmo qoray ku xirsantaa Faisal Daawsan KGS TV madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo